heshiiskan oo ahaa mid la wada sugayay isla markaana muddooyinkii lasoo dhaafay gogoshiisu ay ka soconaysay deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud ayaa lagu soo gabagabeeyay galabta oo taariikhdu ahayd 25-ka bisha shanaad 2018 iyadoona ay ka soo qayb galeen bulsho aad u fara badan isla markaana hawsha lagu dhameeyay geed hoostiis waxa ayna ahayd xilli subaxnimo ah markii aynu gaarnay deegaanka Xanbuure gaar ahaan balli sidaasi aan uga fogeyn oo lagu ballamay in hawsha lagu dhameeyo waxaana intaa kadib loo guntaday sidii gogosha loo dhigi lahaa halkaas iyadoona sidoo kale martiqaadka la diyaariyay kaas oo isugu jira xoolo qal iyo waxyaabo kale oo halkaasi lagu soo diyaariyay intaasi kadib wax saacadu isgurtaba 10kii galabnimo xilliga saacada geeska Afrika ayaa gogosha lagu madnanay lagu soo aruuray iyadoona ka soo qaybgalayaasha ay ahaayeen mas'uuliyiin iyo qaybaha kala duwan bulshada iyo waxgaradkii muddada fadhiyay deegaanka Xanbuure ee gobolka Galgaduud isla markaana raadinayay gunaanadka heshiiska walaalaha diriiray ay gaareen waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawlad goboleedka Galmudug ugu horeeyo madaxa golaha wasiirada maamulka Galmudug gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug wasiiro xildhibaano iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada waxaana arintani gundhig u ahaa mudabana ku sugnaa halkaasi ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur sidoo kale waxa aan ka marnayn isla markaana qarashaadka ku taakuleynayay sheeda corona kala socday qurba joogta ka soo jeeda deegaanadan gaar ahaan dadka diriirtu ay dhex martay isla markaana ah sama jeclaha kuwaas oo doonaya in arinta la soo afjaro iyadoona sidoo kale ganacsatada dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gudaha ku sugan ay dadaal aad u xoogan ku bixiyeen sidii arintani u hirgeli intaasi kadib ayaa la soo gaaray qodbadihii laga soo jeedin lahaa goobta waxaana daafuray munaasabada gudoomiyaha deegaanka Xanbuure Cali Xaashi Faarax waxa uuna ku soo dhaweeyay deegaanka bulshada ka soo qayb gashay gogosha nabadeed waxa uuna tibaaxay in deegaanka Xanbuure oo in muddo ah colaadu daashatay fursad aad u ballaaran iminka ay u tahay taasoo ah in nabadu ay ka hirgasho waxaad ku soo dhawaataan degmada Xanbuure oo bil ka hor meel laga haajira ahayd colaaduna ka aloosneed laakiin bifadlillaahi wa manni maanta ah meel nabada maanta ah meel dadkii ka guuray ku soo laabteen maanta qof walba ee meel fog aaday oo ayada meeshan ka tagay iyo qof meel dhow aadaba oo soo haminayo inuu yimaado taas oo Ilaahay fadligiis iyo dadaal fara badan oo ay ka qaateen maamulka Galmudug iyo dawladda federaalka gaar ahaan ciidamada 22aad iyo ciidamada NISA ay nabadda sabab u ahaayeen waxaan leeyahay cid kasta oo ka qayb qaadatay nabaddaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ajr weyn hasi waxgaradka arinta u doobtay isla markaana ku howlana muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa arinta soo dhaweeyay iyagoona qodbadahooda ku cabiray sida ay ugu faraxsan yihiin iyo dareenkooda aan la soo koobi karin waxa ayna kala haayeen dadkii halkaasi ka hadlay ee waxgaradka muddaba ku sugnaa deegaanka Xanbuure Axmed Nuur Xaashi Guutaale iyo sidoo kale Xaashi Xasan Cabdi nabadoon Maxamuud Muuse Maalin iyo sidoo kale nabadoon Cali Salaad Faarax waxa ayna dhamaantood bogaadiyeen hawsha loo yimid iminka halkani waxa Ilaahay mahadiisa galabta Xanbuure inaan u joogno una nimid una fadhino dadkii walaalaha ahaa intaas dhibaatadu dhex taalay oo ay dhibaatadooda dhamaatay oo maanta ummadda halkan joogta oo meel kasta ka timid inta Galmudug ka kooban tahay ka timid oon garanayo una jeedo galabta hadday meeshan u soo fadhiisteen ayagoo walaaloobay oo awalba walaalay ahaayeen
shimir baa dhex duulay ilaahay shimbirkii waa naga qabtay galabta Xaashi Qabooro iyo Maxamuud Muuse garabkay isku hayaan beeshiina garabtay ku haysaa waxa weeye wax aan la heli karin weeye qoftii maanta waxaan maqli jiray bini'aadamka dhagaxa jilicsan runtii waxaan arkaa in bini'aadamku hadduu galabta qalbi jilicsan yahay dad badan baa suuxi lahaa oo dhulka ku dhici lahaa oo la soo qaadi lahaa sharafta meesha ka muuqata agaasimka ka muuqda madaxda fadhida yacni waqtiga la joogo booska la joogo intaas daana galabta dan laga suuxin horta bini'aadamku waa dhag adagi waxaan soo dhawaynayaa walaalaha walaaloobay magacii walaal hore oo ayaan kala galeen dhibaatadu kala gashay isugu yimid galabta oo boorka ka jafay waa ilaahay mahadiisa waa wax loo shukriyo wax lagu shukriyo way waxaan rabaa saddex qodob in hadalkayga ka dhigo qodobka koowaad dadka halka kan ka muuqda ee ilaa muddo shaqaynayay ee darisyada ah ee ciidanka ah ee gurmadka ah ee cid walba ah ee si wanaagsan oo aan la koobi karin la faallay karinin ugu soo gurmaday beeshaan in ay ku soo noqoto kaalintii ay ku lahayd bulshada ku lahayd inay ku soo noqoto dadaalkooda oo ku sugnaa waxaan dhihi karnaa intiinaas intaa ku soo tala gashay ilaahay baa ajirka aad leedihiin ina marinaya ilaahay ha idinka intaa ka bacdi ma koobi karo waxa way hebel uma koobi karo ogow ciidanka anugu hadda ma kala aqaan waabaan heer baadiya ahaa ma kala aqaan waxaanse dhihi karaa ciidanka halkan hadda ku sugan ee horena u joogay gadaalna u yimid halkan dhibaatadii ka dhacday iyo nabadeynteeda waxay ka qaateen qayb koobaad ay ka qaateen qayb labaad ama qayb saddexaad ama qayb afraadna waxaa ka qaatay ugaaska qaybta labaad oo kaleeto oo welida oo soo gashay baa waxay tahay beesha degan gadoon iyo dhuusamareeb iyo mararguri dhexdooda waxaan dhihi karaa ma tilmaami karo mana qiimay karo dadaalkii ay galeen waqtiguna iima ogola laakiin inaan carabka u dhajiyo aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa intaa ka bacdi waxaan rabaa laba hadal oo ay hartay inaan si cad u sheego beesha halkan ku dagaalantay horta marka hore wixii loo raadinayo waxay ahayd nabad gacantay ku hayaan guul waa guulaysteen waa bishaaraysteen ilaahay baana u kasay waa dawoobeen ma u malay kartaan sida ay u dawoobeen niyaddooda ay saafi u noqotay uma malay kartaan saa u ogaada intaa ka bacdi waxaan rabaa waqti iima harin waa laygu dhegan yahay waxaan u malaynayaa waxaa ii haray dhib baa dhacay dhibka dhacay beeshow ka dhacay waa badan yahay qayb walboo ku jiraa waxaan ka soo qaadayaa agoontii laga dhintay oo gaaraysa 30 xibin iyo 2 dhiman gaaraysa dadka intaa la eg agoomahoodii iyo dhaawac waa tiro badan yahay waxa way dhaawaca arrimaha noocaas oo aad u dhibaatada badan ma dabooli karto beeshu ma dabooli karto sida loo joogo oo la isugu soo gurmaday oo aan isugu halaynayay inay wax allaale wixii xagga dhaqaalaha inay nagala qayb galaan ma ku fillin xamar laga yimaado dhuusamareeb laga yimaado galmudug laga yimaado dawlad dhexe laga yimaado intaas oo dhan galabta waxaan gaarsiinaynaa arintaas arin aan u bardhigi aan u dhacdhigo karna ma aha hanala ka kaabo hanala ka kaalmeeyo hanala kaga maaragtay hanala kala qayb galo intaas ayaan rabaa hadalkayga wax kasta la isku kalifo waxaan ilaahay xukmino ma xukmana waa la isku kalifay waxaan codsanahaa ereyadayda intii aanan u gudbin dadka muslimka oo goobta isugu yimid
inay faatixada noo mareen dib dambe in alla noogu soo celin. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اللهم صل على سيدنا محمد. الله نو أقبله الله نو أقبله دب كادنا إلهي دب دم بنوجم سوء عليه ما سيدارين يو إرجيو هر مرة عيو عاجبانا تعتابتي وعنو ما علينا إنا وسود ويننا dadka eelka oo noo soo gurmaday oo Cabudwaaq baalkale Cadaado Gadoon Dhuusamareeb ilaa Gurceel ilaa Xamar ugaasku ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur wuxuu joogay oo meeshan joogay 30 habeen agteed ayuu joogay وعدينا وعي ماشي كجري بعدي ماشي هذا بنان كاوس عضي ونجد لين مرعو النادي بوديدي وعيري وعبا النادي إنما عنا يو وعبالن بالله زوم مري ولا زوم مري أن هذا وعوي وعبال وجهي لقما جارة ولا ما أغرين وعبال وجهي قرال بالوجي حربقا بالوجي طلق إن لو قيسينا والدونا يا حكومة أنا أقول إنا إسكو حق دورنا والدونا يا وعن روا هذا الضوء اللي قد جاي هذا وعيابا بدنا كارلان ربي وما ملك عن كلا الله هي مدعة السريع iyo mas'uuliyiinta la ima ogolo waa la iga hor taagan yahay waxaan rabaa inta inaan ku soo koobo talow arintan waa dhib badan tahay dhib badanna waa laga soo maray waana loo dhawaad adeegay qolada arinta gacanta ku haysaana ha dhowrto qolada kalena oo xukuumadda yay geedka fooda ku qabanay haddii arintaasi soo laabato tilaabo sharciga waafaqsan inay ka qaado aan codsanayaa bulshaweynta shirka ka soo qayb gashay si qaasa waxaan ugu hambaliyaynayaa gooshan sharafta badan bahda noo dhigtay reer Bilaal inta kadib waxaan aad iyo aad ugu hambaliyaynayaa shirkan quruxda badan ilaahi isku kaanya keenan ugu mahad celinaa walaalahaya marada naga fureed aad iyo aad ay noo sharfeen gooshan qurux badan mar haday noo dhigaan sidoo kale wafuudda waxaan salaamayaa faraalaha la iga ahaado gaalkacyo ka timid Cabudwaaq Cadaado iyo Godin Labe Gurceel Dhuusamareeb Gadoon iyo Maroorgur ilaa Huurshe dhammaantiin waan salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan leeyahay bahda reer Bilaal ee gobasha noo dhigtay ee dhibaatadu ay ka dhex dhacday xaqiiqatan marada naga fureed ilaahay waxaan ka baryaynaa khayr badan inuu siiyo nabadda ilaahay u sii waariyo sharaf iyo ciisina ay ku noolaadaan dhammaan dadka shirkan ka soo qayb galna waxaan leenahay qof walba xibintii ay ka qabatay khayr badan Allah ka siiyo waa aad iyo aadna waa u mahadsantihiin waxaan rabnaa waxa lagu heshiiyay si oo fashila in loo soo banaan dhigo Cabdirasaaq oo ku magac dheer Qownaarshe ayaa waxa uu soo jeediyay qaar kamida nuqulka la isla gaaray isagoona sharaxay heshiiska la soo bandhigay waxgaradkuna ay goobtaba ku saxiixeen intaasi kadib ayaa labada dhinac ee dhibtu kala gaartay waxgaradkooda halkaasi saxiixa ku galeen iyadoona hambalyo guud loo soo jeediyay ujeedo heshiis beeleed kadib markii ay soo laabatay dhibaatadii ka dhex dhacday beesha Bilaal Dhowraka taas oo ku keentay beesha dhimasho dhaawac go'aan agoon burbur hantiyeed iyo uqdad kala fogeysay kadib markii lagu guuldaraystay dadaal badan oo ay sameeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada beesha iyo walaalaha kale ee la dhashay ama la degan kadib markii madaxda golaha sare
madaxa golaha sare golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo isu keenay odayaasha dhaqanka beesha Bilaal Dhowrakace una faray inay cidda u keenaan xal degdeg ah oo waara ayaa odayaasha beeshu waxay isla garteen inay dhaxdooda ka heshiiyaan oo ay xaliyaan dhammaan wax kasta oo ay kala tabanayaan sida dhimasho dhaawac iyo hantiba sidoo kale odayaasha reer Bilaal ayaa ku ballamay inay ku dhamaystirtaan heshiiskooda deegaanada colaadu ka dhaceen kadib markii ay odayaasha iyo walaalaha ugu soo hiiliyay nabadda ay ku guuleysteen 1 nabad xabad joojin iyo ciidan kala qaadis 2 isu celin fur qalab la kala qaaday 3 kulmiyeena gacmahana isu saareen dhammaan dhalinyaradii dagaalantay kadib markii intaasi qabsoontay waxay odayaashu isla garteen in ay u gudbaan qaybtii labaad ee heshiiska taariikhdu markay ahayd 20kii bishii shanaad 2018 iyadoo uu goobjoog ka ahaayeen wafdi uu hogaaminayo madaxa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug iyo ugaaska beesha Cayr ugaas Xasan ugaas Maxamed ugaas Nuur ayay odayaasha dhaqanka Bilaal Dhowrakace waxay ku kala qaateen wafdiga iyo ugaaska hortooda wixii mag ah oo dhaxdooda isaga maqnaay 21 bishii shanaad 2018 odayaasha guurtiga waxay magacaabeen guddi 22 xubnaad ah oo soo qora xeerkii ay ku dhaqmi lahaayeen labada dhinac ee Bilaal Dhowrakace wixii ka dambeeya taariikhda ku saxiixan dokumentigan 22kii bishii shanaad 2018 waxaa fariistay guddigii beesha ee loo xil saaray soo diyaarinta xeerkii ay beeshu ku dhaqmi lahayd waxayna u soo gudbiyeen odayaasha dhaqanka qoraal qabyo ah isla taariikhda 22 bishii shanaad 2018 odayaasha dhaqanka waxay mid uga doodeen qodobadii uu guddigu u soo gudbiyay dood iyo falanqayn dheer kadib madaxda dhaqanka dhalinyarada magaalooyinka ka timid culumada iyo horjoogayaasha ciidamadii dagaalamay ee jufada Cayilwaa iyo jufada Buraale ee Bilaal Dhowrakace waxay si wada jir ah isula qaateen ona saxiixeen qodobada hoos ku qoran nabadda ka hirgashay deegaanka Xanbuure ayaa waxa ay tahay mid muddo laga dhur sugayay iyadoona lagu ballamay in bulshada dhibku kala gaaray loo sameeyo waxa loo yaqaano tiiraanyo bixinta isla markaana wacyigelin laga sameeyo deegaanadii dhibtu ay ka dhacday nabad ayaana leh naas la nuugo iyo barwaaqada nimcalagu qabooba itanaasir maano laga jabo nafaqada naxariista eebay niyadana u roone naftayda ku jecelo raja aan nusqaamayn kugu naawilaysi